u yaqaanaan hadda dhurwaa inaan iska dhahnaa laga yaabo laakiin meel laga keenay aad aan loo aqoon. dhur waxaa la yidhaahdaa liibaanta iyo sacaadada la yidhaahdaa, waana wuu waayey wey sooma hadda odawaa nin haddii lagu yidhahdo meel lagu fasiraad u baahanta odawaa haddii la nin aabihii waayey wey. dhurwaana nin liibaan waayey oo khabiis ah oo khayr laaway ah wey, oo khabiis ah wey. Soomaalida marka way taqaanaa inuu khabiis yahay, way taqaanaa magacaasayna u bixiyeenoo waa kii liibaanta waayey oo aan khayrka lahayn oo khabiiska ahaa wey. haddii dadkan yani khabaa'ista ilaahay ka xarimay ka daba wareegahayo xaggay marka wax u wadaan wey, xaggay wax u wadaan? waxaas ilaahay baa xarimay, waa xaaraam, cunideedana ma bannaano. arrintaas waa inay maqlaan marka dadka islaamka ah maalin walbana, in sidii dadkii cawaanta ay diintu ayna gaarin inta loola dhaqmo, yacni maaragtay loo sheega maalin walbaba wax shala inay xaaraam ahay ay ogaayeen, inay xaaraam tahay ogaayeen, loo banneeyo oo wax shala sharci inay tahay ogaayeen ay ku dhaqmahayeen, waxba kama jiraan la yidhaahdo dadku ay wareeraan ma aha. dadkaanu diinta tabdiilkeeda iyo taxriifkeeda usoo diyaargaroobay wey. waa in la diido laga dhiidhiyo oo gaashaanka lagu dhufto wey, oo laga mudaaharaado oo laga dagaalamo wey. waxaasoo kale waa wixii ilaahay uu xaaraam ka dhigay. qofka bannaynahay xaggee buu joogaa? yaa ka mudan in lala diriro la iska dhiciyo oo loo jawaabo. marka arrintaasoo kale qofka iimaanka leh ama diinta islaamka u naxahayo wuxuu ka dagaalami lahaa wey. maxaa yeele tabdiil bilowday weeyaba, wax ka horeeyo horey loo bedelayna way jireen. marka arrintaas waa in ay dadku sidaa u ogaadaan, tabdiil iyo taxriif diinta lagu hayo oo dee ma garanaysaa limasaalix ajnabiya loo shaqaynahayo inay tahay, sidaas in loo ogaado oo dadka muslimiintu arrintaas ay si gaara oga dhiidhiyaan ama ay ugu soo jeestaan weeyaan. haddaan marka ka gudubno masaladaas, ma aha axaadiisii iska wad, waxaasoo dhan iska wad ma aha. axaadiis mutawaatirah baan xun u yaqaanaan. hadda dhurwaa inaan iska dhahnaa laga yaabo laakiin meel laga keenay aad aan loo aqoon. dhur waxaa la yidhaahdaa liibaanta iyo sacaadada la yidhaahdaa, waana wuu waayey wey sooma hadda odawaa nin haddii lagu yidhahdo meel lagu fasiraad u baahanta odawaa haddii la nin aabihii waayey wey. dhurwaana nin liibaan waayey oo khabiis ah oo khayr laaway ah wey, oo khabiis ah wey. Soomaalida marka way taqaanaa inuu khabiis yahay, way taqaanaa magacaasayna u bixiyeenoo waa kii liibaanta waayey oo aan khayrka lahayn oo khabiiska ahaa wey. haddii dadkan yani khabaa'ista ilaahay ka xarimay ka daba wareegahayo xaggay marka wax u wadaan wey, xaggay wax u wadaan? waxaas ilaahay baa xarimay, waa xaaraam, cunideedana ma bannaano. arrintaas waa inay maqlaan marka dadka islaamka ah maalin walbana, in sidii dadkii cawaanta ay diintu ayna gaarin inta loola dhaqmo, yacni maaragtay loo sheega maalin walbaba wax shala inay xaaraam ahay ay ogaayeen, inay xaaraam tahay ogaayeen, loo banneeyo oo wax shala sharci inay tahay ogaayeen ay ku dhaqmahayeen, waxba kama jiraan la yidhaahdo dadku ay wareeraan ma aha. dadkaanu diinta tabdiilkeeda iyo taxriifkeeda usoo diyaargaroobay wey. waa in la diido laga dhiidhiyo oo gaashaanka lagu dhufto wey, oo laga mudaaharaado oo laga dagaalamo wey. waxaasoo kale waa wixii ilaahay uu xaaraam ka dhigay. qofka bannaynahay xaggee buu joogaa? yaa ka mudan in lala diriro la iska dhiciyo oo loo jawaabo. marka arrintaasoo kale qofka iimaanka leh ama diinta islaamka u naxahayo wuxuu ka dagaalami lahaa wey. maxaa yeele tabdiil bilowday weeyaba, wax ka horeeyo horey loo bedelayna way jireen. marka arrintaas waa in ay dadku sidaa u ogaadaan, tabdiil iyo taxriif diinta lagu hayo oo dee ma garanaysaa limasaalix ajnabiya loo shaqaynahayo inay tahay, sidaas in loo ogaado oo dadka muslimiintu arrintaas ay si gaara oga dhiidhiyaan ama ay ugu soo jeestaan weeyaan. haddaan marka ka gudubno masaladaas, ma aha axaadiisii iska wad, waxaasoo dhan iska wad ma aha. axaadiis mutawaatirah baan xun u yaqaanaan. hadda dhurwaa inaan iska dhahnaa laga yaabo laakiin meel laga keenay aad aan loo aqoon. dhur waxaa la yidhaahdaa liibaanta iyo sacaadada la yidhaahdaa, waana wuu waayey wey sooma hadda odawaa nin haddii lagu yidhahdo meel lagu fasiraad u baahanta odawaa haddii la nin aabihii waayey wey. dhurwaana nin liibaan waayey oo khabiis ah oo khayr laaway ah wey, oo khabiis ah wey. Soomaalida marka way taqaanaa inuu khabiis yahay, way taqaanaa magacaasayna u bixiyeenoo waa kii liibaanta waayey oo aan khayrka lahayn oo khabiiska ahaa wey. haddii dadkan yani khabaa'ista ilaahay ka xarimay ka daba wareegahayo xaggay marka wax u wadaan wey, xaggay wax u wadaan? waxaas ilaahay baa xarimay, waa xaaraam, cunideedana ma bannaano. arrintaas waa inay maqlaan marka dadka islaamka ah maalin walbana,
إن سيدي دتكي عوانتا دينتو أين جاري أنت لا دقمو يعني ما ركتي لو شيء جمال والبضع وحصل إني حرام هاي أوجاين إني حرامته هاي أوجاين لا بنيو وحصل شرع إني تهاي أوجاين كل رقم هايين وحبك كم جيران لي هذا تذكو أي وريران معها ردت كانوا الدين تبديل كذا تحريف كذا أسود ديار جروبي وي وين للديدو اللي قد ديو أو عشان كل غرف توي أو لقى مظاهرات أو لقى تقالما وي وحاسو كله ووحي إلهي وحرام كده يقف كبنين هاي حجابو جوجه يا كم مضاين لا دريرو لا اسكا دحيو oo loo jawaabo marka arintaas oo kale qofka iimaanka leh ama diinta islaamka u naxayo wuxuu ka dagaalami lahaa way maxay tabdiil bilowday weeyaba wax ka horeeyo hore loo bedelayna way jireen marka arintaas waa in ay dadku sida u ogaadaan tabdiil iyo taxriif diinta lagu hayo oo de ma garanaysa li masaalix ajnabiya loo shaqeynayo inay tahay sidaas in loo ogaado dadka muslimiintu arintaas ay si gaar ah uga dhiidhiyaan ama ay ugu soo jeestaan weeyaan haddaan marka ka gudubno mas'aladaas ma aha axaadiis iska wad waxa soo iska wad ma aha axaadiis mutawaatira baan soo